waxaan rabnaa nabad ma rabno dagaal iyo sidoo kale taqax waa erayo ay ku qoraayeen boorar ay wateen dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Gurceel ee maanta dhigay isu soo bax ballaaran oo ay ku taageerayeen iscasilaadda wasiir Fiqi oo lagu amray in uu markaas isagu weeraro magaalada Gurceel hase ahaatee ka biyo diiday haddaba banaabaha sidoo uga dhacay magaalada Gurceel iyo sida hadalladii kala duwanaa ee ay jeediyeen shacabkii ka qayb galay banaabaha lagu dalbanayay in magaaladan Gurceel la soo weerarin ayaanu idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal balse marka hore waxaan ka codsanayaa haddii aad tahay muwaadin jecel in magaaladan Gurceel uusan dhib ka dhicin ama dagaal ka dhicin waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad share gareyso oo aad like gareyso magaalada Gurceel maanta waxa ka dhacay isu soo bax ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladan kuwaas oo taageerayay warqadda istiqaalada ah ee uu gudbiyay wasiirkii amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi kaas oo uu ka codsanayay in uu xilka isaga tagayo ama uu iska casilay waxa kale oo ay dadku ay aad u soo dhaweeyeen ama ay markaas jeediyeen baaqiyo kala duwan ay u jeediyeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Galmudug ee Dhuusamareeb fadhigoodu yahay waxay ka codsadeen in magaaladan aan lagu soo weerarin ciidamada maalmihii ugu dambeeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ay ku soo daabulayeen waxay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xirgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble shacabkii ka qayb galay banaabaha Dhuusamareeb ay ka codsadeen in magaalada aan la soo weerarin oo ciidamadii qaranka loogu talagalay in ay lagu difaaco dalka aan loo adeegsan waa sida iyagu ay hadalka u dhigeen banaabahan ay ka sheegeen haddaba qaar ka mid ah bulshadii ka hadashay banaabaha ayaa sidan hadalkoodii u ahaa yahay dadka isku soo jeedinin ummadaanu cadaway leedahay hal cadaway leedahay halka cadawna waa nimanka nabaddiidka ah qawaarijta la yiraahdo ee culimadu kitaabada 24 saac noogu akhriyaan ee loo tababaray ciidamada Soomaaliya nimankaas qawaarijta ayaa dadkaanu cadow u ah adigu cadow uma ihid ee adigu cadow ha isaga dhigin waxaan ku leeyahay oon baaq geed dheer iyo cod gaaban ugu furaya waxaad xirtay ayraboorkii degmada Gurceel ayaad xirtay hooyooyinkii dhiigbaxayay dadkii dhaawacay dadkii dhibaataysnaay ee colaadaha sokeeyay colaadaha shabaab ragaadiyeen waxaad kaliftay inaad liiraado safar 100 kiiloomitir ah loo qaado waxaan ku leeyahay ka fiirso diyaaradaha aad ka xayirtay ayraboorku hadduu ridoobana noo caday oo aan wax diyaaraduhu ka day karin Axmed Cabdi Kaari Qorqoro waxaan ku leenahay ayraboorka Gurceel si degdega waa inaad noogu furtaa haddaad adigu xirtay haddii ganacsatadii gacanta ku wayda ay xirtana inaad noo cadaydaan ka doonaynaa ganacsatada la hadlaynaa shandhiga uga soo gelin si xaq aan xildhibaannimada u soo gelin haddii dawladda iyo shacabku isfahmaan ayagu meesha ka baxaya maadaama ay dambiilayaal yihiin shacabka iyo dawladda federaalka dadkaas ku dhex jira baaq nabadeed baa Gurceel laga dirahayaa dawladdeena federaalka sidaan ugu soo dhaweynaynaa maamul goboleedka sidaan hor ugu soo dhaweynaynaa sidaas ayaa baaqu ku egyahay macal beesha caalamka loo dirahayaa waa baaq nabadeed waxaa laga yaabaa in fara badan in la yiraahdo ahlu sunna ujeedadeeda waa la fahmi waayey waa la fahmi karaa ahlu sunna ujeedadeedu waa muwaadinimo waa dadkii calamka Soomaaliyeed keenay waa SYL waa Axmed Gurey waa hogaamiyaalkii ahlu sunna wal jamaaca soo dhiciyay calanka Soomaaliyeed iyo xorriyadda Soomaaliyeed ayaa ahlu sunna wal jamaaca rabtaa wax kale oo la rabaa ma jiraan Soomaaliya waxay dib ugu laabatay taxta al-isticmaar gumaysi ayay dib ugu laabatay wax aan xorriyadda Soomaaliyeed iyo Soomaali in la walaaleeyo aan ahayno ma jiraan maalintii madaxweynaha Soomaaliya aanu ku soo dhaweynaa halkan qabaa'ilka gobolada dhexe gacmaha is haysteen maanta qabiil u talaabi karaa ma jiro annagu markaan shacab nahay Gurceel la joogno dawladda federaalka waa dawladdanadii dawladda Galmudug aan ka mid nahana waa dawladdanadii haddii dad xun yahay kolley dad fiican xalab waxaan arkay nin mas'uul ah oo wasiirkii Galmudug ah oo amniga oo dhahaya markaan arkay sida ahlu sunna wal jamaaca in loola macaamilo madaxweynuhu oo go'aansaday ayaan xilkaas iskaga tagay dhahaya eragaasa wuxuu yahay eray aad u qiimo badan hadda qofku bini'aadanka awoodiisa ma dhaafi karo laakiin inuu muujiyo hadafkiisa iyo mowqifkiisa oo cadeeyo dadnimada ku jirta ninkaas waxaan leenahay inta kalena ha ku daysato
asaguna waa nin deegaanka u dhasho mas'uula hadalka uu ku hadlay iyo meesha uu ka baxana meel aad u qanaaco badanah ha sii laban laabo dadaalkaas madaxweynaha galmudug waxaan leenahay madaxweyne galmudug kuma diidana ee adugu inaad dayacdo ha isku maaragtay ha qaadanin tabashada jirta oo dhinacyada ka jirta oo ama qabiilaadka ka jirta aad mas'uulka ka tahay ama maamulka ahlu sunna wal jamaaca oo culumada diinka hogaaminayaan oo dhuusamareebta aad ka tahay maaragtay madaxtooyada ka fadhido gogosha u dhigtay ku dhammeey wada hadal iyo itijaah nabadeed iyo wax isla faham ku dhammeey ciidamada waxa la idinka rabaa marka nabadda saad idinku aad u soo dabaali lahayd anagu nabadan ku joognaa nabad aan gacnaha u taagan colaad gacna uma inaan taagan haddaan huruweyta nugu jirrabin anagu nabadan gacnaha u taagnayd colaad gacnaha uma taagan haddaan nabad weynana nin walba xalihiisu fuula meel ilaahay gaarsiiyaba ilaahay baana nugu filan oo nugu barbara annagu nabaddaasaan ku maarnay madowga mushaaxiriinta oo shiray anigu magacyadooda ma kala aqaanin kuwa waxay yidhahdeen ha lagu duulo kuwana waxay yidhahdeen duulaan ma jiro wada hadal lagu dallaabo kuwaan yidhi ha lagu duulo aana naga lisi maydaana dadkiina raaca walaalihiinna ha ku soo duulinina hana ku talinina aana idinkama soo horreeyaan ma maqlaysaan ha ku lugo'inina waxaad yeelaysaan nabad nin walba nabadda qaado meel kasta jirto ama madaxda ha ahaato ama maamulka ha ahaato ama galmudug ha ahaato annagu nabadaan ku baaqnay haddaan nahay ahlu sunna wal jamaaca waad ku fadhida adiga ruuxaagu weli ra'iisul wasaare waxaan kugu baaqaynaa bifadlikum haddii aan nahay shacabweynaha Gurceel haddii aan nahay gobolada dhexe dadka dhibaatadu haysato waayo 24 saac colaad baa jirto xaalad kulul baa lagu jiraa waxaan ku baaqaynaa nabad haddaba ciidamada la soo daabulayo ma ahan in lagu la dagaalamayo cadaawad kuwa soo daabulaysaan waa wiilasheeni kuwa loo daabulayo waa wiilasheeni marasta la rabo in la qixiyo waa awlaadeeni waa hooyooyinkeeni waa waalidiinteeni cajiska ahaa maanta annagoo waalidiintan cajiska kor fadhina gaadiidna aan u haysan madfacna loo ka rido bari ka maalin ma noqonayso inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allah u naxariiso qof walba ma noqonayso micna ma samaynayso haddii aan nahay shacabweynaha Gurceel waxaan ku baaqaynaa nabad baa naas la nuuga leh sidoo kale waxaan ku baaqaynaa midowga musharaxiinta sida degdega hadda shirka jaraa'id u qabtay qaarkoodna ay dhaan ha lagu duulo Gurceel qaarkoodna ay dhaan lagu duuli maayo bifadlikum ka dhahayow iyo ka aan dhihinbow waxa lagu duulayaa ama waxa loo duulayaa ama dadkaad isku dirayso waa dadkaagii shaydaan baa isku kiinsufaynaya shaydaanka isku kiinsufaynaya ka acuudi bilaysta ilaahayna tala saarta waxaad leedihiin maanta in la yiraahdo Soomaaliya colaadda ka jirta saan u dabinaa dagaalada sokeeya socda saan u dabinaa qabaa'ilada isku taagan saan u dabinaa inaan ku mashquulaan leena ma aan inaan ku mashquulno oo niraahno degme hebel ha lagu duulo degme heblayaha la soo qabto qabiilayaha la soo qabto dadka ayaa markii banaanbaxa ay dhameeyeen waxay socod dheer ku mareen bartamaha magaalada Gurceel iyagoo markaasi muujinayay shucuurtooda ama dareenkooda ku aadan in aysan rabin magaaladan inay xabad ka dhacdo haddii aad ila socotay muuqaalka bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa waxaan ka dalbanayaa mar labaad inaad si xushmad leh ku sheer gareyso mahadsanid